قصة كشيكي نبي ونين ميل مريا أيا وحو مغلي ضرورة كوركي دو عد كبحيو عدكو مركو دقيستي وحال لي هاي بيرت هبل ورابي أيو مغليا تبي تنوي يابا isagoo codkii ka yaaban ayay daruurtii socoto meel halkan ay ku daaday dabeetana biyihii oo dhammi dhudhub bay soo raaceen meel iliilada ayay biyihii soo mareen wuxuu u yimi nin iliishii taaganoo beertiisa ku duduwaya wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi masmuk waar ilaahay addoonkiisiiyo magacaa markaasuu yidhi hebel hebel baa la yidhaahdaa magacuu ninkani maqlay buu sheegtay maxaad ii weydiisay buu yidhi waxaan maqlay buu yidhi saxaabta daruurtaasi oo la leeyahay beerta hebel waraabe markaan soo dabagalayna roobkii adigunbuu beertaadii helay iliishan yare adigood waddo un waa biyaha ka soo dhacay meel kaloo roob ku da-ayna ma jirto eniyo waxaad qabatay ii sheeg buu yidhi maxaad samaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey markaa ninkani wuxuu qabto ninkani wuxuu yidhi wax kale ma sameeyo beertan baan ka shaqeeyaayoo falaa markay soo baxdo 3 qaybood baan ka dhigaa qayb masaakiintaan siiyaa qaybna aniga iyo carruurtaydaa cunna qaybna beertan dib ugu celiyaa buu leeyo shaqadeedii dambe iyo beeristeedii dambaan ka dhigaa markaa ninkani wuu shaqaynayaa shaqadii uu shaqeeyeyna inna wuu sadaqadaystay inna xuquuqdii reerka iyo intan buu ku dabaray inna beertuu dib ugu celiyey shaqadaasi adduunye uu qabanayey ayaa ilaahay ugu abaalguday in daruurta la yidhahda kaa beertiisun waraabi